waxaa maanta xiran inta badan suuqa weyn ee Bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn bariga Afrika. xirnaanshiyaha suuqa ayaa sababtay kadib markii shalay ganacsatada gobolka Banaadir gaar ahaan kuwa ganacsada suuqa Bakaaraha ay sheegeen inay joojin doonaan shaqada suuqa maadaama dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda ay ku soo rogtay canshuur kordhin. sidoo kale waxaa muddo ku dhow 20 maalin xiran dekedda weyn ee Muqdisho halkaas oo ay joojiyeen ganacsadii Soomaaliyeed ee wax ka soo dejin jiray halkaasi iyagoo cabasho ka ah canshuur kordhinta ay dawladdu sameysay. maanta oo aan tagnay suuqa Bakaaraha waxaa halkaasi ku arkaysaa dukaamada waaweyn oo xiran halka kuwa teelteel ay furan yihiin. waxaana inoo suuragali weysay inaan la hadalno ganacsada suuqa oo iyagu joojiyay shaqadii ay hayeen. hase yeeshee waxaa laga warsugi doonaa halka uu ku dhamaado khilaafka u dhaxeeya ganacsada gobolka Banaadir iyo dowladda Soomaaliya iyo sida ganacsada Soomaaliyeed loo qancin lahaa inay dhiibaan canshuurta lagu soo kordhiyay. Axmed Suleymaan, Cable TV, magaalada Muqdisho.